magacu waa Maxamed Xaaji Ingiriis wuxuu ahaa qoraa wax ka qora siyaasadda Soomaaliya wuxuuna wax ku qori jiray website-kii ugu horeeyay ee qaranka waxa uuna haystaa shahaadada PhD waxaana intaas u dheer 2 master degree 7 sano nin dhakhtar soo dhamaysto maanta military aan galaab dhahay hal xidiga la bootina 2 xidiga lagu bilaabay bas 7 sano jaamacad ku jira ogow xidig la lagu bilaabay ninka high school ka soo baxay la taaway shaqadii ugu horeysay ee uu noloshiisa qabsaday waxay ahayd wariyanimo waxa uuna waraysiga ugu horeeyay la yeeshay madaxweynaha ku meel gaarka ah ee Soomaaliya Cabdiqaasim Salaad Booy waxaana waraysiga suurtageliyay sida ay sheegeen wasiirka warfaafinta ee xilligaasi Cabdiraxmaan Xasan Aadan 10 Oktoobar sanadkii 2002 khubarada siyaasadda oo dorasaysa ayaa Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ku tilmaamtay da'yarkii aqoon-yahanka ahaa ee u soo kacay Afrika isaga iyo professorada ka waaweynba waxa ay dadka cilmigooda ugu gudbiyaan luqado kale iyaga oo isku qaab ugu sharaxaya sida ay wax u barayaan Professor Maxamed Xaaji Ingiriis ayaa maalmihii ugu dambeeyay waxa lagu dacaydinayay baraha bulshada gaar ahaan Facebook isagoo lagu eedeynayo inuu ku lug lahaa qoritaanka buugga The Social State in Somalia oo micnaheedu yahay gobolkii ismiidaaminta ee Soomaaliya Maxamed Xaaji Ingiriis waa macallin wax ka dhiga jaamacadda Oxford ee dalka Mareykanka Professor Maxamed Xaaji Ingiriis waa cilmi baare waxbara madaxda Afrika isagoo oo jaamacadda Oxford ee dalka Mareykanka ka dhiga maadada la yiraahdo African Leadership ugu dambeyn aqoon-yahan Professor Maxamed Xaaji Ingiriis waa aqoon-yahan u baahan in la dhiirigeliyo balse aan u baahnayn in baraha bulshada laga dacaydo iyo lagu aflagaadeeyo